السلام عليكم soo dhawaada walaalaha qaaliga youtube channelka iga daawanaysana waa Shamis official sida u jeedaanba soo dhawaada walaalahay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij aad u qurux badan maalmahan ka socday dhanka youtube ka run ahaantii aad iyo aadna ii soo jiitay inaan ka hadlana aan jeclaystay waxaa socday maalmahan isdhexgalka youtuberska run ahaantii waa barnaamij aad iyo aad u qurux badan inay gabdhaha isdhiirigeliyaan isgarab istaagaan istaageeraan maasha allah tabaarakallah waxaa bilowday number 1 hooyo macaan style aad iyo aad walaashay u mahadsan tahay aadan ku salaamaya run ahaantii barnaamijkan wuxuu fursado fara badan siiyay gabdho badan oo hadda soo baxaya run ahaantii aad iyo aad una u balaartay maasha allah waxaa ku xigsaday qamar binti amiir oo ayadana barnaamijka kasoo qayb gashay oo ayadana gabdho fara badan maasha allah ku xujeysatay mala waxa keentay maasha allah challenge-gaas isagana bulow dhax cirku galay waxaa kusoo xigsatay adna hina oo ayadana gabdho aad iyo aad u fara badan ayadana ku challenge garaysatay oo kulligood wada ah inta ugu badan youtuberska cusub ama youtuberska hadda soo kacaayo maasha allah wax lagu farxa waaye waxa waaye fursad qaali ah oo ay gabdhaha isku taageerayaan isku dhaxgalayaan run ahaantii waa fursad qurux badan waa barnaamij maasha allah ah run ahaantii gabdho fara badanna caawiyay aad iyo aad gabdhaha walaalahay ugu hambalyeynaya dhammaan gabdhaha youtuberska ah waxaana rajaynayaa inay hamigooda iyo himiladooda ay ka leeyihiin dhanka youtube-ka dhammaantood inay gaari doonaan horeyna ay u socdaan insha allah wax walibana dadaal waliba mirihiisa yacni waqtigiisa baad guranaysaa insha allah dhammaantiina guula idiin wada rajaynayaa barnaamijkaasna wuxuu noqday barnaamij ani ahaan aad iyo aad iisoo jiitay oo aad iyo aad aa uga hela run ahaantii mar kalena waa ugu hambalyeynayaa dhammaan gabdhaha challenge-yaashaas la wadaagay gabdhaha walaalahooda oo kusoo kicinaya oo ku garab qabanaya run ahaantii waa wax qurux badan shout out lagu sameeyo asagaaba yacni ka muhiimsanaaba isdhihi karaaba markii heblaayo kale ku challenge garaysto abaayo kale u dhiibto abaayo kale u dhiibto ani ahaan gabdho badan oo youtubers oo aan weli hore u arkin hadeertan challenge-gan ku arkooya oo igu cusub saasoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay shacab fara badan saasoo kale ku kasbadaan oo saas ay shacabka ku wada arkaan marka maasha allah barnaamijkaas wuxuu noqday barnaamij aad iyo aad u qurux badan hooy macaan mar kale waa ku hambalyeynayaa saa gabdhaha walaalaha u garab taagan tahay run ahaantii aa ugu helisay qalbigay ka wada farxayn ducadaas adinka dhan waa idiin socotaa gabdho fara badana challenge-ga ka qayb qaadanayo hadday ahaa lahayd mayrajo hadday ahaa lahayd hooy macaan hadday ahaa lahayd shukri masalla hadday ahaa lahayd qamar inta hadday ahaa lahayd fatma channel intaa iloobeynayaysa ii qabanin laakiin waxaa jirto maxaa la dhihi jiray gabdho oo si fara badan yacni u challenge garaystay gabdho yaryar sida aniga aan ka arkayay qamar oo kaleeto iyo adna oo kaleeto gabdho aad iyo aad u fara badan ee aad u challenge garaysteen oo maxaa la dhihi jiray fursado badan ay siiyeen dadka meeshii 3 iyo 4 iyo isku challenge garaysanayaan gabdho aad u fara badan ee ayagu ku challenge garaysanayeen maasha allah inta kaleeto aanan arkin ani labadaas gabdhood arkay inta kale oo aanan arkin oo ayagana saasoo kale sameynayeen ayagana waa u hambalyeynaya laakiin aniga ma arkin hayga raali noqdaano ma ahan kaliya inaan labadan gabdhood si gooni ah u taageerayo ma ahan intaa arkay ani ahaan unbaa ka hadlooyaa number 1 waxaa bilowday hooyo macaan qamara ku xigsatay adna ku xigsatay marka qamar iyo adna waxaa si gooniyo aan diiradda ugu sii saaraya waxay tahay gabdho fara badan oo weliba ah youtuberska yaryar ay challenge garaysteen gabdhahaas waxay u tahay farxad waxay u tahay dhiirigelin waxaa laga yaabaa inay ku jiraan gabdho oo ka niyad jabsanaa youtube-ka gabdho oo muraal ahaan maxaa la dhihi jiraa muraalkii ka jabay oo yacni dhanka youtube-ka cillado ka haysteen ama yacni dismuraalka ahaay ama inay iska dhaafaan qaarkood niyadu ku jirtay ama yacni ka niyad jabsanaa si kastay ahaataba laakiin markii fursadan la siiyey oo la challenge garaystay inay yacni dhiirigelin u sameynayso inay farxad gelinayso inay maxaa la dhihi jiray sii xiiseynayaan inay hore usii socdaan run ahaantii barnaamij qurux badanaa sameyseen gabdhaha kaleeto ayagana sameeyey oo aniga aanan arkina ayagana sida gabdhahan oo kaleeto u ammaanaya ama ugu hambalyeynaya ay ayagana la mid yihiin marka ani intaa arka unbaa ka hadlaya marka intaan arkina ayagana howsha dhankoodii ka wadaan waa u hambalyeynaya dhammaantood gabdhaha Soomaaliyeed
waxaana rajaynayaa barnaamijkan halkan ku ekaanin oo ay gabdhaha isdhexgal wanaagsan sameeyaan maasha allah sida hadeertaan socotaba isdhexgalka youtuberska aan dhaha wallahi waa isdhexgal wanaagsan challengeyaashaan hadeertaan imaadeen maasha allah bandowgi maasha allah wuxuu keenay fikrado fiican oo keena maasha allah tabaarakallah oo dad fara badan ka faa'iideysteen oo gabdho fara badan ay yani moraal ku yeesheen ay ku heleen shacab yani shacbiyad soo raacda waxaa jira gabdho fara badan oo waxyaabo qurux badan soo dhiga haddana aysan shacabkii arkin laakiin maanta markaad kusoo challenge garaysateen shacabkiyaa tusteen markay xujadii soo furaan oo magacaaga ciwaan ay kasoo dhigtaana shacaba halkaas uga imaanayo run ahaantii waa wax wanaagsan oo aad isku taageerteen oo walaalihiina idinka yani idinkaga dambeeya youtube-ka ah kusoo garab qabanaysaan maasha allah tabaarakallah garab qabashada ma ahan keliya lacag isisiin waxa waaye dhinac walbay tahay marka waa ugu heliseen gabdhaha challengeyaashan quruxda badan aa maalmahan wadiin horeyna usii wadaan leeyahay insha allah guulaan u rajaynayaa gabdhaha soomaaliyeed meel kastay dunida daafaheeda ka joogaanba insha allah qof walibana dadaalaa wuu gaaraa qof walibaba maalin unbuu guushiisa hanti doonaa ama gaari doonaa inta ka sukaysanayaan la rajo dhigin oo laisniyad maxaa la dhihi jiray la rajo dhigin oo la isdhiibin yacni soo kuf soo kac soo kuf soo kac maalin unbaa guusha gaari doontaa soo mah adduunka oo dhanaaba saas ku dhisan dabaq hal mar lama taago waa aas-aaskaa laga soo bilaabaa qaybta koowaad qaybta labaad ugu dambeyn meeshii la rabaa la gaarsiiyaa soo mah marka insha allah gabdhaha dhanna waxaan rajaynayaa meesha ay u wada socdaan oo hamigooda yahay inay wada gaari doonaan insha allah inta ka sokaysana yacni waxaa wanaagsan inay isgarab qabtaan inay istaageeraan inay isjeclaadaan inay isku qalbi furnaadaan waxaa jirta jaalanjiyaashan ka hor in yacni gabdhaha aysa isku qalbi furneen inay yacni maxaa la dhihi jiray sida youtuberska soo kacayo kaleeto dhowr mar intay taageero codsadeen ay taageero waayeen ama gabdhihii ayagana waa gabdho mashquulkoodii adduunkooda iska haysta oo shacab fara badan ku xiran yihiin ay qoraaladooda arki waayeen ama ay inta arkeen usoo jawaabi waayeen oo jaanis fara badan ay yani heli waayeen oo ayaga jaanis u heli waayeen gabdhihiina yacni ayagii utun ku noqotay arrintii oo ay u arkeen inay gabdhahan walaalahooda caawinaynin maxaa la dhihi jiray inay yasaayaan inay bahdilayaan ay u arkaayeen laakiin maantay wixii oo dhan waxaa laga dhigay ceebka saliin ma maqli jirteen wixii oo dhan waxaan ku yidhi wixii kusoo maray camera maa la dhihi jiray wixii kusoo maray camera ka dhacday gabdhihii xumaanta u haayay ama yacni maxaa la dhihi jiray xoogaa yacni isbuusaayay waxaa dhacday isdhexgal maasha allah wallaahi arrintaas aad iyo aad ani ahaan ugu farxa run ahaantii waa arrin qurux badan run ahaantii maasha allah tabaarakallah meesheeda kasii wada gabdhaheenana dhammaantood allah noo wada deysto gabdhaha caawinaayana jasaakallahu kheyr allah siiyo waa gabdho wanaagsan walaalahood inay taageeraanna diyaar u ah run ahaantii hana la sii wado insha allah oo maxaa la dhihi jiray qolaba meel bay ku fiican tahay qolo make up ay ku fiican tahay qolo cunto karin ay ku fiican tahay qolaba waxay ku fiican tahay lagu soo challenge gareysto oo waxaan ku yiri hoosha halkeeda laga sii wado qolo cilaan ay ku fiican tahay qolaba waxa lagu soo challenge gareysto insha allah hoosha saa u bilowdeen ha ahaato horeyna u socdo walaalahay gabdhihii hadafkooda maanta ka gaaray iyo kuwa hadda soo gurguuranayaba insha allah qof waliba waxaan rajaynayaa in ay hamiga ay leedahay gaarto gabdhaha soomaaliyeedna waa ii sharaf inay maanta noqdeen gabdho isku hiilinaya isgarabsanaya iswata isku xiran run ahaantii waa wax wanaagsan waana wax lagu farxo waxaana muuqaalkan usoo duubay inaan idinkugu hambalyeeyo gabdhaha sameynayay arrintan wanaagsan ee quruxda badan ee sharafta badan run ahaantii maasha allah tabaarakallah wallaahi waa arrin wanaagsan waa arrin qurux badan maasha allah inaa idiin hambalyeeyo idiin mahad celiyo ma ka daalayo walaalahay aadaana u jeclahay inaa isgarab istaagtaan istaageertaan mar walba waana idiin rajaynayaa inaa mar walba guulaysataan hadduu ilaahay raalli ka ahaado dee insha allah waxaa idinkaga tegayaa bashbash iyo barwaaqo iyo siduu hamigiina rabo oo ilaahay subxaana watacaala idin gaarsiiyo dhammaanteenba insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo guul iyo gacmo buuxaan idinkaga tegayaa
فيديوغان هدا داوتي أما مقال كان أداوتي داوشة المقال كان آدي شرف يقولته كوجنا مهد علنايا ولا لها يقع سبحان الله كسر دواد قلبي فرن ولا إذن جعل ولا لي هر إلى شوجين آدي أقوم مهد علنايا فيديو لما إذا أنت أكو كل مدون واحد إذن كتجايا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.